haddii Israa'iil ay soo degto meesha oo ay gantaalaheedii ku rakabato oo xuutiyiinta si soo duqayaan oo xagga u duqayaan ma kula tahay in sida Tel Aviv loo ilaali doono Berbera iyo Hargeysa intaal kasta oo xuutiyiin ama Iiraan soo tuurteen hawada laga qabanayo ma kula tahay gantaalaha Iiraan ay soo tuureysay xuutiyiintu soo tuurayeen waxa qabanayay Israa'iil kaliya ma ahayn waxay ahayn Mareykanka Ingiriiska Faransiiska maraakiibtooda dagaalka ee diyaaradahooda badda cas joogay iyo Mediterranean-ka waxa ka hortagayay wadanka Jordan Saudi Arabia meelaha ay difaaci doonto waxa weeyaan meesha maraakiibta ay baysaskeedu yaaleen ay qalab ku xira doontaa waxa idinka soo gudbaan idinka taala waxa la ku soo fasaxi doona waxa Oromaya Ethiopian ayaga population noqon doona dhulkan waa la ka qaadan doona Ethiopianku Israa'iiliintu kuma filla inay meeshan ayagu camiraan waxa la keeni doona calooshu shaqaystayaal 100,000 oo askari oo calooshu shaqaysta marka lagu keeno oo naagahoodii iyo faqasiyadoodii iyo hoteeladoodii iyo kalaabiyadoodii la daba dhigo meesha aad ku noolaanaysaan ii sheeg wadan ku noqonaysaan haddaan barnaamijka hore u guda galo 26 bishii December oo hadda ku guda jirno ayaa dowladda Israa'iil waxay sheegtay inay aqoonsatay maamulka Somaliland oo ka mid ah Soomaaliya dowladda Israa'iil aqoonsigeedu dadka Soomaaliyeed wuxuu ahay wax kadis ku ah ummadda Soomaaliyeedna la yaab weyn ku noqday meel kasta oo ay joogaan waxaan wareystay Soomaalida Yurub joogta Soomaalida Mareykan joogta Soomaalida Afrika joogta meelaha kala duwan iyo Soomaalida Soomaaliya joogta dhammaantood waxay isla qireen in ay qariibsadeen inay la yaabeen inay filaway ku ahayd waxa dhacay iyo sida wuxuu dhaceen waxa kale ayadana xusid mudan in dowladda Israa'iil lafteedu aysan ka gamban oo sheegtay waxa ay u aqoonsanayso Somaliland waxa cajiib ayadana maamulka Somaliland iyo dadkii magaalada Hargeysa joogay dadkii Soomaalida waqooyi qabiilka Isaaq la yiraahdo dabaaldega ay muujiyeen waxa qof kasta Soomaaliya ka yaabi calanka Israa'iil oo u malayso inuu qof kasta hore u heestay oo magaalada Hargeysa dharka ugu badan la xiran yahay noqdo calankii Somaliland iyo calanka Israa'iil ayaa la isku lamaanay qof kasta Soomaaliya waxa uu isweydiiyay calamadan xagee yaaleen xagee waxaan ku kaydsanayeen waxaan isweydiinaynaa wadad badan isweydiiyeen Israa'iil danta ay ka leedahay Somaliland ma ka faa'iideysa Israa'iil way sheegtay waxay dhaheen dad u hadlay maxadiyada Israa'iil dowladda Israa'iil ku dhow waxay sheegeen 3 qodob inay kala hayeen qodobka koowaad oo ah in Israa'iil ay kala dagaalanto xuutiyiinta oo istiraatiijiyada magaalada Berbera ay ku taalo badda cas saaran tahay laga maamuli karo marinka Babul Mandab ama gacanka cadmeed oo markaad Berbera joogto aad u jeegto cadan meeshaas oo si toos ay uga dagaalami karto Israa'iil haday militarigeeda iyo qalabkeeda soo dhigato ay guri u garaaci karto Sanaa iyo Yemen Saudi Arabia gacanka cadmeedna oo gacanta u galay Israa'iil dabcan Iiraan ay si fudud uga dagaalami karto waa sida ay sheegayaan waxay kale doonayaan in ay dad Falastiiniyiina oo 2 milyan 1 milyan bar ilaa 2 milyan lagu sheegay ay doonayaan in xoog dhulkooda looga soo qaado oo la keeno maamulka Somaliland dadkaas oo ah dadka Gaza sida la aaminsan yahay ku barakacay lagu baabi'iyay dhulkooda lagu burburiyay dadkaas oo la soo daadguray si qasaba dhulkooda looga soo saaro la keenayo Somaliland maamulka Somaliland xagee la dejinaya dadkan Somaliland dad badan ma ahan 2 milyan oo qofood ayaa maximum lagu tilmaamaa hadii marka 2 milyan oo kale lagu keeno ajaanib ah sidad u maareynaysa aqliga wuxuu sheegaya
sideed rabtaa inaad u maarayso dad soo barakacay oo waddankoodii laga soo ceyriyey oo xanaaqsan oo tiro kaa badan sideed rabtaa inaad u maarayso maxaa kaaga diyaarsan waxba uma diyaarsana Somaliland laakiin in la aqoonsado wax kasta ayay u sameeyeen maxay tahay sababta ku qasbaysa inay heshiis la galaan warqaad waxay sheegayaan 20 bishii December 6 bili ka hor inay heshiis la gashay maamulka Somaliland oo heshiis la galay Israa'iil si ay u aqoonsi yani si aqoonsi u helaan inay ogolaadeen in Falastiiniyiinta xoog lagu keeno dhulkooda ma isweydiideen 2 milyan oo qofood haddii la idin keeno idinkoo 2 milyan ama ka yara laano Soomaalida daaroodka Somaliland ka tirsan waa ka go'ay Somaliland maamulkaas wuu ka leexday maamul ay dhisteen la yiraahdo koonfur bari ama waqooyi bari samaroonka iyo godobiirsaga waa arteen kacdooma ka socda way diidan yihiin maamulka Soomaaliland waxa soo haraya waa qabiilka Isaaqa oo pure ah cid kale kuma jirto waxaana xusid mudan ra'iisul wasaaraha Israa'iil markuu qaramada midoobay ka hadlayay fadhiga qaramada midoobay aan caadiga ahayn dowladda Soomaaliya isugu wacday inuu yiri qabiilka Isaaqa Soomaali kale ma bashiin bar Isaaqa ayuu si toos u carab dhigay haddii marka qabiilka Isaaqa ay liiraado la aqoonsanaya oo dad aad u yara 2 milyan oo ajaanib la kor keeno seedratiin wadankeena inaad u lahaatiin seed hadii ka soo qababa leeyahay aqoonsado wadan noqotiin seedru maamulaysan aqligu meeni degan yahay oo fahamkiinu manuuliya wax is weydiin mudan weeyaan haddii Israa'iil ay soo degto meesha oo gantaalaheedii ku rakabato oo xuutiyiinta si soo duqayaan oo xag u duqayaan ma kula tahay in sida Tel Aviv loo ilaali doono Berbera iyo Hargeysa oo gantaal kasta oo xuutiyiin ama Iiraan soo tuurteen hawada laga qabanayo ma kula tahay maya gantaalaha Iiraan ay soo tuureysay xuutiyiintu soo tuurayeen waxa qabanayay Israa'iil kaliya ma ahayn waxay ahayn Mareykanka Ingiriiska Faransiiska maraakiibta dagaalka ee diyaaradooda badda cas joogay iyo Mediterranean-ka waxa ka hortagayay wadanka Jordan Saudi Arabia inta soo wadan ayaa qayb ka qaadanaysay ka hortagga gantaalaha ka imaanaya Iiraan iyo Sacuudiyiinta markaan Jordan kama qayb gali doonto gantaal difaacida gantaalaha Iiraan iyo Sacuudiyiinta ka imaanaya markaan Saudi Arabia kama qayb gali doonto markaan Mareykanku kama qayb gali doono maxay tahay sababta aad u dooraneysaan in la idin duqeeyo intaadna ma dowladnimo gaari is weydiiseen aqliguna soo degaa loo baahan yahay maxay tahay sababta aad u doonateen dhulka la simo soo laba arrimood aan ku soo socota oo aad u xanuun badan mid in bulshooyin ka tira badan oo xanaaqsan oo dhulkoodii laga soo xayuubiyo la idin keeno oo daadka hooshka ku qaadaan waxaa dhinac socda Israa'iil inaysan ciidan ahaan wax yar maanaysan joogi doonaan ciidamadooda ma qaybsadaan Ethiopian ayaa badal keeni doona maraakiib dagaal Ethiopian ayaa badal keeni doona ciidamo Ethiopian ayaa la keeni doona casho shaqaysteen adduunka laga soo aruuriyay kuwaas ayaa gabdhihiina iyo noloshiina iyo guryihiina iyo diintiina alaaqdiina fasahaadi doona meeshaas ay noqon doonto xarun 100,000 askari oo calooshu shaqaystayaal oo cid bina waxay xeerinayaan iyo waxay xushmeynayaan aysan jirin ayaa la idin keenaya waxa la soo fasaxaya oromada Ethiopian-ka la soo fasaxaya dhulka ay qabsanayaan ayagoo shacab Somaliland amala ma isweydiiseen waxa ka dhalan kara cawaaqibka aqligu ma nafsan caalamka Israa'iil waxaan waxaan wax ka hoosay ma jiraan Somaliland bilaa ali aqligu ha shaqeeyo dii marka la soo la yiraahdo war xuutiyiintii oo la dagaashan oo wax la waxay heli karteen ku soo tuuraysa dhulkii oo gilgilanaya oo qabiiladii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed oo la dagaashan waxa aad aqbasheen iyo waxa meesha ka socda ay duulaan ku soo qaadaan ii sheega nolosha aad helaysaan ee maanta qurxanad heesataan saad ugu ciyaaraysaan sida stability u ahaan kartaan ii sheega ma jiri karto ma dhacayso inay stable iyo nolol ahaato waxaan ka maqan waxa weeyaan haddaad go'aysaan si sharaf ku go'a haddaad go'aysaan adinka oo qiimo leh oo Soomaaliya oo aan Soomaalinimada cadawtinimada u muujinaysaan Soomaaliya cadawnimo ahane joojiye haddaad go'aysaan si nasabnimo ah oo nadiif ah oo Soomaalinimo ku jirto muslimnimo ku jirto xushmad leh Soomaali uga go'a joojiye waxaad samaynaysaan waa ilhaano waa dulli waa waaqib xumo waa wax ilmihiina dhacsa doona waa wax jiilasha soo socda
dhacsan doona waxa aad ku dhaqmaysaan Somaliland darow qabiilka isaaqow intaas waa ka gobsantiin intaas waa ka aqli badantiin intaas waa khudun wanaagsantiin dib isugu laabta xamaasadu yeeyna tigi dad yar oo la soo abaabulay waxaad ogtiin markii magaalada Baghdad Mareykanku qabsaday waxaan xasuustaa Saddam Hussein sanamkiisa oo la soo riday oo askari Mareykan uu tafuulay jaranjar ku fuulay oo baabuur ku xiray oo calanka Mareykanka wajiga loo geliyay sanamkii Saddam la soo riday oo dad yar oo meel yar oo square ay xaraantiyeenayaan oo garaacayaan oo maaragtay la leeyahay dadkii Iraaqiya isku soo baxay laakiin waxaan ku ogaanay barnaamij laga sameeyay dad yar oo la soo aruuriyay ahaayeen in yar oo muuqato kaamarada lagu camiriyay ahaayeen ay dadka Iraaqiyiinta ah waxa meesha dabaaldegayo ninka kabaha mid sanamka Saddam ku garaacay dadkaas maanta waxa Hargeysa banaan baxaya ee calankii Somaliland iyo calankii Israa'iil isla ruuxaya ma u maleynay dadkii Soomaali galbeed yihiin Soomaali waqooyi yihiin isaaqin yihiin ma u maleynay in yar oo loogu talagalay qorshe calaamadane waan kaga jawaaba meesha ka yimid dadaan la hadlo waxay u dhaheen waxaan waa la sii ogaa hore loo sii ogaa waaba la keenaba ayagoo bundada ah oo tiro badan ayay meel ku diyaarsanaayeen dad kale waa loo qaybiyay waxa la sii qorsheeyay Soomaa waxaan leeyahay ugu dambeyntii barnaamijkan haddii Israa'iil danta ay ka leedahay inay gantaale ku xirato ay kala dirirto xuutiyiinta Yemen kala dirirto Iran maamusho gacanka cadmeed ujeedadeedaas hadday u meel marto ogow Somaliland nabada oo lagu raaxaystaa ma jiri doonteen goob dagaal oo gantaalaha adduunka la isaga gooshay noqon doonta laano Israa'iil ma difaacan karto waxa ay soo tuurayso nimankan tirada badan tan in kama laha meelaha ay difaaci doonto waxa weeyaan meesha maraakiibta ay baysaskeedu yaalin ay qalab ku xira doonta waxa idinka soo gudbanaan keenay taala waa biyo kama dhibcaan talabaad waxa la ku soo fasaxi doona waxa Oromay Ethiopian ayaga population noqon doona dhulkan waa la ka qaadan doona laano Ethiopianku Israa'iiliintu kuma filla inay meeshan ayagu camiraan waxa la keeni doona calooshu shaqaystayaal 100,000 oo askari oo calooshu shaqaysta marka lagu keeno oo naagahoodii iyo faqasiyadoodii iyo hoteeladoodii iyo kalaabiyadoodii la daba dhigo meesha aad ku noolaanaysaan ay sheegad wadan ku noqonaysaan ma noqonaysaan ilaahay aqligu hayni soo laabto Soomaaliyu inama nacba Soomaaliyu inama karhin Soomaaliyu kurba yani kurba kuma tihiin aqligu hayni soo laabto Soomaalinimada hayni shaqayso waxaan ku soo gabagabeynayaa إلهي سبحانه وتعالى شرطنا وافجيو إلهي قلبي جينا غير كهتصو صومالي من نعبه صومالي لماذا يسلع لماذا الله يكسو لله هاي صومالي هالنوراتو إلهي صومالي هوه الليو إلهي علاسك صومالي هدول قادو إلهي صومالي وقودنا والدولة أو إسهاسته هنو افتيميو هنو Soomaali midnimay u baahan tahay gacmaha hal is qabsado Soomaalinimadii hal la yagleelo dib hal isu ceshto caruurta dhalanaysa iyo jiilasha soo socda gobol hal loo xaaro gudnimadan hal iska daayo